xukunkan oo ka dhacay xarunta maxkamadda gobolka Maroodi Sheekh ayaa lagu dhageystay dacwadan oo ka dhan ah 5 eedeysane iyo 2 gaadhi oo lagu soo qariyay Chad ay gudida ka hortagga xanuunka coronavirus ay dalka hore uga mamnuuceen. garsooraha maxkamadda gobolka Maroodi Sheekh Cabdisalaan Sheekh Xasan Axmed oo ku dhawaaqay xukunka eedeysanayaasha ayaa sheegay in dawladdu la wareegtay 2 gaadhi oo kala ah Land Cruiser taarikadiisu tahay Z246 eber iyo gaadhi nooca loo yaqaano dameer qadiye oo taarikadiisu tahay 6144. maanta waxa halkan la keenay 5 qof afar qof ay ku cadaatay dambigii ahaa inay si qaad soo galiyeen dalka maandooriyaha la mamnuucay ee qaadka. maxkamaddu way xukuntay xukunsanayaashii waxaana ku xukuntay min 3 sano iyo 6 bilood oo xariiq qabeeda iyo 3 milyan oo ganaax maaliyadeed. ninkii afraad ee ay ku cadaan weyday eeduna maxkamaddu xoriyadiisa u celisay. sidoo kale maxkamaddu waxay la wareegtay badeecadii ay sideen oo ahayd maandooriyihii qaadka oo la gubay. waxa kale oo maxkamaddu kala wareegtay gaadiidkii ay ku sideen qaadka ay wadanka ku soo galiyeen oo kala ha gaari Land Cruiser iyo gaari dameer qadiye nooca loo yaqaana. maadaama ay tahay wax la mamnuucay oo sababta loo mamnuucayna ay tahay ka hortag laga hortagayo iyo dadaal qaranku ka sameeyo caabuqan dunida oo dhan la tacaalayso. waa wax xaaraantinimada wixii ka dambeeyay wareegtaa wixii ka dambeeyay cid kasto oo talaabada qaado oo u hogaansami weyda awaamirta qarankana sharciga marka la hor keeno wixii ku cadaada ciqaabtiisa la marinaya. imkan waxaan ku wareejinayaa gaadiidkii ciidanka bilayska taliyaha saldhigga gacan libaax si uu ula wareego. waxa isaguna halkaasi ka hadlay xeer ilaaliyaha gobolka Maroodi Sheekh Cabdifataax Yuusuf Cali waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaan maxkamadda hor keenay 5 eedeysanayaal oo aan ku soo eedeynay in ay ka hor yimaadeen awaamirtii gudida heer qaran ee ka hortagga xanuunka COVID-19. 5 eedeysana waxay wateen 2 baabuur oo mid Land Cruiser yahay midna dameer qadiyay waxaana ku wateen 14 baag iyo qayb kamid ah caqaar loo yaqaano kuwa yaryara waxaana ka soo galiyeen duleedka magaalada Hargeysa. waxa lagu xukumay eedeysanayaashii dambiilayaal imka noqday 3 sano iyo 3 milyan midkiiba oo ganaax ciqaabeeda. go'aanka ay maxkamaddu maanta ka soo saartoon ku qanacnay. ugu dambeyntiina taliyaha saldhigga gacan libaax gaashaanle Khadar Faarax Cumar waxa uu sheegay waxaan maxkamadda iyo xeeraanta hor keenay 2 gaadhi iyo 5 eedeysane. 2 gaadhi oo kala ahaa gaadhi Land Cruiser iyo gaadhi dameer qadiya iyo 5 eedeysane. eedeysanayaasha iyo gaadiidka waxa lagu soo eedeeyay inay sideen oo ka ganacsanayeen qaadka tarabaana qaadkaas oo la mamnuucay. sababta loo mamnuucayna waxay ahayd ka hortagii coronavirus-ka. waxay maxkamaddu ku xukuntay waajibaad wixii ay lahaayeen waanu ku qanacnay biliis ahaan. waxaanu la wareegnay oo garsooruhu igu soo wareejiyay 2 gaadhi furayaashoodii taasoo aan ku wareejin doono waxa weeye biliiskii iyo sii sareeyay haddii alla ka dhigo.